السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرفت لي deegaanka TV wararka deegaanka TV ku daawan doontaan waxaa kamid ah madaxweyne Farmaajo khudbad u jeediyay xildhibaanada golaha shacabka talaalka Ruushka uu soo saaray hadda la siin karo dadka qaba COVID-19 Mareykanka oo gacanta ku dhigay shidaal malaayiin dollar oo Iran leedahay madaxweyne Erdogan oo si kul looga hadlay heshiiska Imaaraadka iyo Israel ku soo dhawaada daawada qodobadaas oo faahfaahsan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa u jeediyay khudbad xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya madaxweynaha ayaa sheegay in isagoo ka duulay hadalkii uu ka sheegay gabagabadii shirkii bishii hore ee Luulyo lagu soo gudbiyay magaalada Dhuusamareeb ee ah in halkaasi wixii uu kala kulmay dib ugu soo celin doono golaha shacabka oo go'aansaday inuu yimaado hadalkii aan ka sheegay gunaanadkii shirkii Dhuusamareeb ah inaan dib ugu soo celiyo golaha shacabka oo asaaska nidaamka dawladnimadeena anigoo haddaba fulinaya hadalkii aan ka sheegay gunaanadkii shirkii Dhuusamareeb ee ahaa in qodobadii aan isla meel dhignay aan dib ugu soo celiyo golaha shacabka oo ah asaaska nidaamka dawladnimadeena madaxweynaha oo hadalkiisa sii wata ayaa yiri warmurtiyeedkii Dhuusamareeb wuxuu dhigay in dalka hadda ay ka dhacdo doorasho lagu wada qanacsan yahay waqtigeeda ku qabsoomta lagana wada tashado iyadoo hawshan loo saaray guddi farsamo ama ka soo baaran deegaanka doorashada qaabka uu u dhacayo dhaqangalkiisa iyo ballanqaadkiisa ayuu yiri madaxweyne Farmaajo warmurtiyeedkii Dhuusamareeb wuxuu dhigay in dalka ay ka dhacdo doorasho lagu wada qanacsan yahay waqtigeeda ku qabsooma ama ku qabsoonta lagana wada tashado iyadoo hawshaas loo saarayo guddi farsamo oo ka soo baarandega hanaanka doorashada qaabka uu ku dhacayo dhaqangalkiisa implementationkiisa madaxweyne Farmaajo oo hadalkiisa sii watay ayaa yiri sidaas darteed waxaa laga maarmaan in xukuumadda federaalka iyo dowlad goboleedyadu ay mar walba wada hadlaan wada hadalna uu furan yahay oo aan la kala dudin la wada tashado la isqanciyo lana yimaado qorshayaal iyo go'aamo siyaasadeed oo awood dib ugu soo celinaya shacabka Soomaaliyeed oo idinku matashaan ayuu yiri wada jirkeena dimuqraadiyadeena iyo inaan siyaasadda dalka aan ku hagno kala wadaag iyo is-ogol macnaha qof shakhsi ah hadduu yahay madaxweyne iyo hadduu yahay xildhibaan iyo hadduu yahay dowlad goboleed in qof shakhsi ah uusan wixii jiidan oo ay tahay wax naga wada dhexeeya oo aan leenahay oo tala wadaag ah aan isku qancinno aan isu tanaasulno sidaas darteed waxaa laga maarmaan ah in xukuumadda federaalka iyo dowlad goboleedyadu ay mar walba wada hadlaan wada hadalku furan yahay oo aan la kala dudin la wada tashado la isqanciyo lala yimaado qorshayaal iyo go'aamo siyaasadeed oo awoodda dib ugu celinaysa shacabka Soomaaliyeed ee aad idinku matashaan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xildhibaanada golaha shacabka kaga mahadceliyay shaqooyinkii ay qabteen madaxweynaha ayaa intii uu hadlayay soo hadal qaadin wax muddo kordhin oo ay golayaasha dawladda ay sameynayaan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa madaxweynaha Soomaaliya ayaa saacadaha soo socda lagu wada inuu gaaro magaalada Dhuusamareeb halkaas oo la filayo inuu ka furmo shirka Dhuusamareeb 3 madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay in talaal lagu sameeyay gudaha dalkiisa oo lagu talagalay COVID-19 lana ansixiyay talaalkan ayaa lagu sameeyay tijaabo qaatay in ka yar 2 bilood oo lagu sameeyay bini'aadamka madaxweyne Putin wuxuu sheegay in talaalkan la mariyay dhammaan arrimihii loo baahnaa tijaabada isagoo tilmaamay in gabadhiisa la siiyay saraakiisha hogaamiyay dalkaas waxay sheegeen in talaal guud oo dalka oo dhan la bilaabi doono bisha Oktoobar khubarada ayaa walwal ka muujiyay sida degdega Ruushka uu shaqadan u qabtay waxayna sheegeen in cilmi baarayaasha Ruushka ay suurtagal tahay inay si boobsiisa u sameeyeen talaalkan isbuucii la soo dhaafay dowladda Ruushka waxay ku dhawaaqday inay si guud u bilaabayso talaal wadareed ka dhan coronavirus marka la gaaro bisha Oktoobar saynisyahannada Ruushka waxay sheegeen in tijaabooyinka hordhaca ee talaalka ay ku soo dhamaadeen si guul ah waxay sheegeen talaalka uu adeegsanayo qaab waafajisan adenovirus
oo ah fayraska sababa hargabka caadiga wuxuuna bilaabaa inuu jirka difaaco. balse in guddiga tayada dawooyinka ee Ruushka uu ansaxay talaalkan waxay imaanaysaa ka hor intaan la shaacin natiijada cilmi baaris guud oo baaxad leh oo kumanaan qof ka qaybgalayaan, taasi oo loogu yeero tijaabada wejiga saddexaad. Khubarada waxay doonayaan in tijaabadaas ay noqoto mid muhiim ah una noqoto xaqiijin badqabka iyo waxtarka talaalka, iyadoo taa jirto. Haddana wasiirka caafimaadka Ruushka Mikhail Murashko wuxuu sheegay in talaalka la caddeeyay inuu yahay mid waxtar weyn u leh dadka. Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in ay la wareegtay 4 markab oo sida shidaal laga leeyahay dalka Iran isla markaana ku sii jeeday dalka Venezuela. Waa shixnadii ugu ballaarnayd oo shidaal oo Mareykanka ay gacanta ku dhigaan. Ku dhawaad 1.1 milyan oo fuusto shidaal ayaa gacanta lagu dhigay iyadoo gacan laga helayo wadamada saaxiibada la ah Mareykanka, sidaasi waxaa sheegtay wasaaradda cadaaladda Mareykanka. Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in maraakiibtan ay jebiyeen cunaqabataynta Mareykanka uu saaray dalka Iran. Safiirka dalka Iran u fadhiya dalkaasi Venezuela ayaa sheegay in aysan jirin maraakiib shidaal oo Iran leedahay oo gacanta lagu dhigay. Garsoore ku sugan Mareykanka ayaa soo saaray warqad lagu soo qabtay shixnada shidaal oo ay saarnaayeen 4 markab kadib markii dowladda Mareykanka kiis u gudbisay maxkamad bishii aynu soo dhaafnay. Bayaan ay soo saartay wasaaradda cadaaladda Mareykanka ayaa lagu sheegay in ay ku guuleysteen gacan ku dhigidda shidaal malaayiin dollar oo ay leeyihiin ilaalada kacaanka Iran. Ciidamada ilaalada kacaanka Iran ayaa ah laan ka tirsan ciidamada Iran, kuwaasi oo ay Mareykanku aqoonsan yihiin urur argagixiso. Waaxda cadaaladda dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in markii gacanta lagu dhigay maraakiibtaasi ay ciidamada badda Iran ay ku guuldareysteen isku daygooda in maraakiibtaasi ay soo koraan. Sarkaal sare oo dowladda Mareykanka ka tirsan ayaa wakaaladda wararka AFP u sheegay in markii maraakiibtaasi sidii shidaalka la qabanayay aan la isticmaalin wax awood milatari ah, taasi beddelkeedna shirkadaha maraakiibtan iska lahaa loogu hanjabay cunaqabatayn in lagu qasbo in shidaalkaasi ay Mareykanka ku soo wareejiyaan. Ma cadda ilaa iminka goobta ay ku sugan yihiin maraakiibtan kala ah Bella, Bering, Pandi iyo Luna. Danjiraha Iran u fadhiya Venezuela Hoyat Saltani ayaa wararka sheegaya in la qabtay maraakiib sida shidaal Iran laga leeyahay ku tilmaamay dacaayad been abuur ah. Xiisadda u dhaxaysa Mareykanka iyo Iran ayaa aad u sareysay tan iyo markii maamulka madaxweyne Trump uu ka baxay heshiiskii nukliyeerka ee u dhexeeyay Iran iyo dalalka reer galbeedka. Madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa ka hadlay heshiiska taariikhiga ay gaareen dalalka Imaaraadka Carabta iyo weliba Israel. Madaxweyne Erdogan oo khudbad ka jeediyay telefishinka ayaa sheegay in dalkiisa ay dhici karto in xiriirka u jaro Imaaraadka, waxaana sababta uu ku sheegay xiriirka ay la yeelanayso Israel. Tallaabada la xiriirta arrinta Falastiin ma ahan mid inaga degaysa. Waxaa laga yaabaa inaanu qaadno tallaabooyin aan meesha uga saarayno xiriirka diblomaasiga ee nagala dhexeeya Abu Dhabi, waxaana dhici karta inaanu u yeerno safiirka halkaasi inoo jooga, ayuu yidhi Mr. Erdogan. Mr. Erdogan ayaa intaas raaciyay, waxaan garab taaganahay shacabka Falastiin, weligeena ma ogolaan in Falastiin la burburiyo. Israel iyo dalka Imaaraadka Carabta ayaa kala saxeexday heshiis dib loogu soo celinayo xiriirka labada dhinac. Israel waxay aqbashay inay joojiso qorshaheeda ay isku ballaarinayso qaybo ka mid ah daanta galbeed. Bayaan la yaab leh ayaa waxa uu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo heshiiskan garwadeen ka ah ayaa waxay dalalka heshiiskan ku tilmaameen mid taariikhi iyo guul nabadeed. Israel ayaa waxay iminka Kuuriya aan u xiriir la lahayn dalalka Carabeed ee gacanka, balse waxay Israel iyo dalalkan wadaagaan walaac ay ka qabaan Iran, taasi oo sababtay inay yeeshaan xiriir aan rasmi ahayn. Hogaamiyaasha Falastiiniyiinta ayaa waxaa la sheegay in tallaabadani ay la yaab ku noqotay. Afhayeen u hadlay madaxweynaha Falastiin Maxamuud Cabbaas ayaa heshiiskan ku tilmaamay khiyaano qaran, isla markaana waxaa dib loogu yeeray safiirkii Falastiin u fadhiyay Imaaraadka. Madaxweyne Trump ayaa heshiiskan u dhexeeya Ra'iisul Wasaare Netanyahu iyo boqorka Imaaraadka Mohammed Al Nahyan ku tilmaamay waqti taariikhi ah. Waa heshiiskii saddexaad ay gaaraan Israel iyo Carabta tan iyo 1948 oo markaasi lagu dhawaaqay madaxbannaanida Israel. Toddobaadyada soo socda ayaa waxaa kulan yeelan doona ergooyinka kala socda Imaaraadka iyo Israel si loo saxiixo heshiisyo laba geesood ah. Heshiisyadan ayaa waxaa ah kuwa la xiriira dalxiiska, maalgashiga, duulimaadyo toos ah, ammaanka, isgaarsiinta, tiknoolajiyadda, tamarta, caafimaadka, dhaqanka iyo deegaanka. Waxaa sidoo kale ka mid ah in labada dhinac ay isweydaarsadaan safiiro. Wasiirka arrimaha dibadda ee Imaaraadka Anwar Gargash ayaa sheegay in aqoonsiga Imaaraadka ay aqoonsadeen Israel ay ahayd tallaabo geesinimo leh. Haddaba daawada sidee looga falceliyay heshiiskan?
Ra'iisul Wasaaraha UK Boris Johnson ayaa soo dhaweeyay waxaana uu sheegay inay tahay tallaabo loo qaaday dhanka nabadda Bariga Dhexe. Madaxweynaha Masar Cabdilfataax al-Siisi ayaa dhankiisa soo dhaweeyay heshiiska, halka wasiirka arrimaha dibadda Urdun uu sheegay in heshiiskan uu gacan ka geysan doono in wadahadaladii istaagay la sii wado. Halkaasina daawadayaal waxaa ku idil qodobada maanta ee wararka Deegaanka TV iyo sidoo kale ayagoo faahfaahsan. Halkan waa Deegaanka TV, waxaad kala socon kartaa wararkii ugu dambeeyay dal iyo dibad. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Sidoo kale haddaad ku cusub tahay channelkan, subscribe saar, gambaleelka furo, sidoo kale share, comment, like intaba. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.